أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxaa guud ahaanba si weyn looga ciiday magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag kubanaan dadweyne ayaa isku soo baxay fagaaro weyn ee ku yaala galbeedka magaalada Xingalool ka gadaal salaadii ciida ayaa halkaasi waxaa dadweynaha kula hadlay Cabdiraxmaan Ciise Fidin iyo waliba Abwaan Mursal Saciid oo kamid ah culimada magaalada أيها الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعيش في هذه المناسبة الكبرى يوم نتذكر فضل لا إله إلا الله وعظمة لا إله إلا الله وقدسية لا إله إلا الله. فرصة إني حج كتشوغان يضمان مسلمين تكلا كوكلا فريرسان دافع عالم كجارهان ضدك الصومالي ده وحنا إلهي سبحانه وتعالى عمل كي نحن يقبله إلهي سبحانه وتعالى سنة كيس هينو جارسي محيا هاي توي بش يبرواقو إلهي سبحانه وتعالى سنة كيس النبت جليو صومالي والنبات dhanka kale qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa cabiray dareenkooda ciida aniga maxamuud jaamac libaaxe waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiinba si wanaagsan ayaan u ciidnay dadka kale oo ciidana waxaan u rajaynaynaa inay sidaayisi la mid ah ay u ciidaan aniga Faadma Cabdulqaadir Maxamed oo ku nool mandaqada Xingalool waxaan u hambalyeeyaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku kala iiday wadad waxaan leenahay ciid mubaarak wa kullu caam Cabdiraxmaan Maxamed oo jooga degmada Xingalool ee koonfurta gobolka Sanaag waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda caalamka meel kasta ay joogaan muslimka wa kullu caam wa antum bikhair wa maalin weyn sidoo kale waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Axmed Cabdiraxmaan Axmed Gadari السلام عليكم عيد مبارك دمان مسلمين تا كل شغلان دافع adduunka waxaan leeyahay ciid mubaarak hasi kastaba haatee munaasabada ciidul adxaa ayaa sanadkan ku soo beegmaysa ayadoo gobolka Sanaag guud ahaanba ay ka bilowdeen roobabkii dayrta waxaana wajiyada bulshada laga dheehanayay dareen iyo farxad ku aadan munaasabada ciida waa Maxamed Fanax telefishinka caalamiga ee bulsho degmada Xingalool ee gobolka Sanaag